bismillaahi raxmaani raxiim wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka waa 16 bisha Juulaay sanadka 2026 maalin khamiis ah qodobada aan qaybtan kugula wadaagi doonana waa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka iyo Israa'iil oo ay ka tafatay waraysiga dheer uu bixiyay ee dhinacyada badan taabanaya qorshaha ay dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ay wadaan ee ka dhanka ah dowladda Iiraan ama marinka Hormuz. waxaan kaloo aan eegi doonaa warbixinta sirdoon ee daha ka qaaday sida dowladda Iiraan ay u ogaatay goobaha ay ciidamada Mareykanka kaga sugan yihiin bariga dhexe. sawirada dhanka satellite-ka maxaa Cumaan, Jordan iyo sidoo kale Qatar gaaray doqeymihii ugu dambeeyay la isweydaarsaday iyo fariinta Qaatimul Anbiyaa iyo warbixin gaar ahaaneed oo ku saabsan bisadii kabaha xiratay. yacni qorshe qarsoodi ah oo Israa'iil ay doonayso inay ku rido nidaamka dowladda Iiraan iyo macluumaadka laga qoray. qodobo kale ayaa raaci doona insha Allah. soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo maracadda show barnaamijka falanqaynta caalamka. ma doonaysaa sidan oo kale in waalidka looga cumreeyo? halkan waxaa uga cumreynayaa Abu Cabdi Nuur Ismaan oo isoo wakiilatay gabadhiisa shirkad la hubo oo aan damiin ka nahay Almahdiyiin. la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo. mar kale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal waxaan ku hormarayaa macluumaadka ku saabsan dowladda Morocco ayaa maalintii shalay oo Arbaca ahayd 15 Juulaay waxay magaalada Rabat oo caasimada dalkaasi ku saxiixday heshiis ay kaga qayb galayso ciidanka xasilinta caalamiga ee la doonayo in loo diro magaalada Gaza oo ISF loo soo gaabiyo ama International Stabilization Force. heshiiskaasi waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Morocco Nasser Bourita iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Morocco, ergeyga golaha nabadda ee magaalada Gaza Nikolai Maladinov iyo hoggaanka ciidanka xasilinta ee magaalada Gaza. Morocco waxay qorsheynaysaa inay howlgalka ay ku biirso saraakiil sarsare oo militariga ka tirsan ciidanka booliiska iyo ciidamada loo yaqaano jandarmaha oo xuduudaha loogu talagalay. sidoo kale cisbitaal militari ayay ka hirgelin doontaa goobaha ciidanka ay ku sugan yihiin kaas oo daaweyn iyo gargaar caafimaad siin doona dadka magaalada Gaza. dowladda Morocco waxaa kaloo ay sheegtay tallaabadan inay tahay isku darka howlo bini'aadanimo iyo kuwa amniga lagu xaqiijinayo. heshiiska si rasmi ah looguma sheegin tirada guud ee ciidamada Morocco ay u diri doonto gudaha magaalada Gaza, laakiin hadda waxaa lagu warramayaa in la diyaarin doono marka hore kooxo saraakiil ah kuwaas oo tababar iyo diyaar garow ku samayn doona meel ku dhow magaalada Gaza. mana ahan ciidan si buuxda mustaqbalka la doonayo inay ugu sugnaadaan gudaha magaalada Gaza. bilowga Morocco saraakiishaasi tirada kooban ayay diri doontaa bishii February sanadkan 2026. taliyaha ciidanka xasilinta ee magaalada Gaza Jasper Chevres waxa uu sheegay in 5 dal ay ballan qaadeen inay ciidamo u diri doonaan magaalada Gaza kuwaas oo kala Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo iyo Albania. dalalkaasi intooda badan waa dalal muslimiin oo ama muslimiinta ay ku badan yihiin hase yeeshee ballanqaadyada ciidamada iyo kuwa dhab ahaantii gudaha magaalada Gaza galaya ayaa la sheegay inaanay isku mid ahayn, waxaana suuragal ah inay dowladaha qaar ay ka laabtaan. Indonesia oo kale 1,000 askari ayay ballan qaaday. Kazakhstan waxay si rasmi ah u sheegtay inay ciidamo halkaasi u diri doonto, inkastoo wadarta aanay sheegin. Kosovo sidaas oo kale bishii March ee sanadkan ayay ballanqaad ka samaysay. Albania inkastoo tirada aysan si rasmi ah u sheegin, haddana waxaa la sheegay inay ballan qaaday inay soo diri doonto ciidankaasi. Masar iyo Urdun ma aysan ballan qaadin ciidamo nabad ilaalin ah, balse waxay ballan qaadeen inay tababar ay siinayaan ciidanka booliiska ee la doonayo in loo diro gudaha magaalada Gaza. qodobkaasi waxyaabaha ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa. aan ku raaciye madaxweyne ku-xigeenka dowladda Mareykanka J.D. Vance ayaa moodaa inuu si cad u kaga hor yimid Israa'iil kooxaheeda iyo dhammaan taageerayaasha ku sugan gudaha dalka Mareykanka ee Israa'iil taageersan ama u ololeynaya. waxaana uu sheegay inuu doonayo in dagaalka Iiraan gabi ahaanba la soo gabagabeeyo halka Israa'iil iyo kuwa kale ay doonayaan inuu dagaalka sii socdo. waxa uu sheegay siyaasadiisa inay tahay America First ama Mareykanka ayaa marka hore danihiisa laga shaqeynaya, sidaa daraadeedna ma uusan aqbalin in dowlado shisheeye ama kuwa kale ay dhaqaale ay ku bixiyaan olole ka dhana ama cadaadis lagu saarayo mas'uuliyiinta Washington. waraysi dheer oo uu siiyey mid ka mid ah dadka podcastiyadooda aadka loo daawaday dalka Mareykanka oo 3 saac soconayay ayuu si cad wuxuu kaga hadlay dagaalka siyaasadeed kan warbaahineed iyo midka fikir ee ka dhan ah saameynta Israa'iil ee ku leedahay siyaasadda Mareykanka. wuxuu si gaar ahaaneed u weeraray dhinacyada isku dayay inay fashiliyaan wada hadallada Iiraan lagula jiro, isagoo ku eedeeyay inay doonayaan in dagaalka uu sii socdo iyada oo aanan lahaynin ujeedo rasmi ah oo dagaalka lagu soo afjarayo. wuxuu soo hadal qaaday qorshihiisa oo ku dhisan ilaa iyo 3 arrimood.
waatan koowaad wuxuu yidhi waxaan doonayaa in maraykanku ka baxo siyaasadda dagaalada aan dhammaadka lahayn. aragtidiisa ayaa ah in iiraan aan lagu qasbi karin oo keliya duqaymo iyo awood military, yacni aan miiska wadahadalka lagu soo celin karin iyada oo la duqaynayo, sababtoo ah xitaa dagaalka kadib weli waxaa loo baahanayaa heshiisyo siyaasadeed. sidaa daraaddeed wuxuu taageersan yahay wadaxaajood lagu xaqiijin karaya amniga maraakiibta iyo furitaanka marinka hormus. waatan labaada wuxuu sheegay inuu doonayo inuu jibiyo awoodda ololayaasha israa'iiliyiinta ku dhex leeyihiin gudaha maraykanka, gaar ahaana kuwa ka dhex shaqeeya xisbiga jamhuuriga iyo warbaahinta garabka midig. waatan saddexaad wuxuu doonayaa inuu dhiso muuqaal siyaasadeed oo isaga ka dhigaya hogaamiyaha mustaqbalka ee garabka American First. fariintiisuna waxay tahay maraykanka wuxuu taageeri karayaa Israel, laakiin Israel ma amri karayso siyaasadda maraykankana kuma shaqo laha, kumana qasbi karto Washington dagaal maraykanka aanay dani ugu jirin. wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday xiriirka ka dhexeeya faylka Abessian iyo sidoo kale hay'adda sirdoon ee Mossad. wuxuu si cad u sheegay in xiriir weyn uu ka dhexeeyo Mossad iyo Epstein, sidoo kalena howlahan ay fududeeyeen xubno ka tirsanaa CIA-da maraykanka. Netanyahu ayuu eedeyn u jeediyey isagoo sheegay mar walba danihiisa inuu ka shaqaynayo. ujeedada G-Defense ma ahan inuu xiriirka maraykanka iyo Israel uu gabi ahaan burburiyo, laakiin wuxuu yidhi waan isbeddel aan la nimaadaa oo Israel aanay ku qasbin maraykanka waxa iyada danteeda ah, waa inay Amerikaanku ay gartaan iyaga dantooda. maxay kula tahay adiga? qaybta hoos aragtidaada ku reeb, like saar muuqaalka, la wadaag saaxiibadaada. waad mahadsan tahay. dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa dowladda Japan ka codsaday inay maalgelin, taageero farsamo iyo ka qaybgal siyaasadeedba ay ka bixiso ballaarinta dhuumaha shidaalka ee u ogolaanaya in saliidooda ay dibadda u dhoofiyaan iyada oo laga maarmayo marinka Hormuz. waa qorshe ka dhan ah dowladda Iiraan. inkastoo marinka Hormuz maraakiib badan ay kaga gudbaan, haddana waxay dowladahan ay ka fakarayaan sidii gebi ahaanba marinkan ay kaga maarmi lahaayeen. waxay taagan yihiin maxaa annagana loo gumaysanayaa, ama maraykan ha la wareega halkaasi ama Iiraan ha la wareegto. waa inaan la nimaadaa aragti kale oo gabi ahaan aan kaga maarmi karayno marinka Hormuz. waana sababta keentay in codsigani hadda loo jeediyo dowladda Japan. warbixintan waxaa bannaanka keenay Sonija Kito oo ah gudoomiyaha shirkadda sifaynta shidaalka ee dowladda Japan. waxaa kaloo uu sheegay in Japan ay hadda ay baarayso qaababka ay u taageeri karto mashaariicdan. weli lama shaacin heshiiska madambaysa lacag cayiman ama mashruuca dowladda Japan in si rasmi ah loo gacan geliyay. laakiin marka la eego dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga maxay doonayaan? Sacuudiga wuxuu doonayaa inuu kordhiyo awoodiisa dhuunta shidaal ee East West Pipeline loogu magac daray, oo shidaalka ka qaada bariga dalkaasi Sacuudiga una gudbisa dekedda Yanbu oo badda cas ah, halkaas oo ay maraakiibta shidaalkooda ay ka qaataan, sidoo kalena ay maraakiibtu shidaalka uga qaadi karayaan galbeedka Sacuudiga iyaga oo aanan marin marinka Hormuz. sidaas oo kale dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta mar hore ayayba bilowday qorshahan, waxaanay doonayaan inay dardar geliyaan ballaarinta dhuunta shidaal ee ka timaada magaalada Abu Dhabi ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta kuna dhamaata magaalada Fujairah. magaaladan waxay dhacdaa gacanka Cumaan, bannaanka marinka Hormuz. qorshuhuna wuxuu yahay in awoodda dhoofinta ee dekedda Fujairah laab laga dhigo sanadka 2027. Japan waxaa laga yaabaa marka inay taageeraan dhinacyada maalgelinta, qalabka, farsamada dhismaha, caymiska iyo damaanadda maaliyadeed. hase yeeshee nooca saxda ee taageerada waxaa lagu warramaya wadahadalle inay ku jiraan. haddii arrimahan ay ku guulaystaan labada dowladood ee Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta, waxaa suuragal ah inay dowlado kalena ay aragtidan ay qaataan oo gobolka ku yaala, kuwaas oo shidaal badan soo saara, taas oo gabi ahaanba siinaysa fursad ay kaga maarmi karayaan isticmaalka marinka Hormuz. Japan waxay si cad ugu tiirsan tahay saliidda bariga dhexe. sanadkii 2025 qiyaasii 94 shidaalka ceyriin ee Japan ay soo dejiso waxaa la sheegay gobolkan in laga qaaday. sidaa daraaddeed dagaal ama xiritaan ku dhaca marinka Hormuz si toos ayuu khatar ugu yahay warshadaha gaadiidka iyo korontada dalka Japan. xitaa iyaga oo kaliya ma ahane, Shiinaha ayaa shidaalkan inta badan isticmaala oo marinka Hormuz ka gudba. mas-uulka ugu sarreeya marka shirkadaha shidaalka ee dalkaasi Japan wuxuu sheegay in ujeedadu aysan ahayn oo kaliya in saliidda bariga dhexe lagu bedesho saliidda ama shidaalka Maraykanka laga helo, balse ay tahay in la sameeyo marin kale oo lagu gaarsiin karaya isla shidaalka Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta gudaha dalka Japan. warshadaha sifaynta ee dalka Japan ayaa badankood lagu qaabeeyay noocyada saliidda ee bariga dhexe. sidaa daraaddeed si degdega uma farsamayn karayaan tiro aad u badan oo shidaalka Maraykanka ah. Japan sidoo kale waxay eegaysaa shidaal dheeraad ah oo Maraykanka iyo Alaska iyo meelo kale ay ka helaan
latin america sidaas oo kale way doonayaan, laakiin tani waxay muujinaysaa in sacuudiga iyo imaaraadka carabta iyo dalalka kale ee waaweyn ee shidaalka iibiya in hadda hormus aysan u arkin khatar ku meel gaar ah, balse ay u arkaan halis joogto ah oo istaraatiiji ah. sidaa daraaddeedna waxay maalgelinayaan dhuumo iyo mashaariic kale oo ay mar walba kaga madax bannaanaan karayaan marinka hormus. qorshayaasha hadda socda iyo kuwa la soo jeediyey waxay sanadka 2027 ay ka ilaalin karayaan in ka badan 45% dhoofinta shidaalka qaliijka ee dagaalka ka hor khataraha marinka hormus, halka sanadka 2028 la sheegay in 60% shidaalkaasi suuragal ay tahay inuu ka gudbo meel aan marinka hormus ahayn haddii qorshaha sida hadda loo wado lagu sii wado. imaaraadka carabta mar hore ayuu bilaabay balaayin dollar inuu ku maalgeliyo sidii uu kaga maarmi lahaa isticmaalka marinka hormus. markii uu ka baxay ururka OPEC-na waxay qaateen go'aan ay shidaal badan ay ku soo saarayaan si ay dhaqaale badan ay u sameeyaan. dhinaca kalena wargeyska Russia Today ayaa isagoo soo xiganaya wargeyska Financial Times wuxuu daabacay warbixin sirdoon oo shaaca ka qaaday sida dowladda Iran ay u awooday inay ogaato goobaha ay ku sugnaayeen ciidamada Mareykanka ee dalalka bariga dhexe iyagoo adeegsanaya taleefanada askarta iyagoo aanan u baahnayn shabakado basaasnimo iyo xitaa dayax gacmeedyo. wargeysku wuxuu sheegay in shabakadaha taleefanada gacanta ee bariga dhexe lagu qaaday weerar dhanka internetka ah kaasoo soo laalaabtay laguna raadraacay goobaha ay joogaan shaqaalaha qandaraaslayaasha Mareykanka iyo ciidanka dowladda Mareykanka intii uu socday dagaalka Iran. arrintan waxa lagu saleeyay xogta isgaarsiinta iyo xog ay bixiyeen dad arrintaani si dhow ula socda. taas ayaa waxay sahashay dowladda Iran inay la socoto sidoo kalena macluumaad muhiim ay ka hesho saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay bariga dhexe. suuragalnimada in dalal Mareykanka cadow u yaqaano ay si toos ah ula socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada Mareykanka waxay walaac ku abuurtay qaar ka mid ah xildhibaanada Mareykanka, waxaana ay ka digeen in nidaamyada telefoonada ay ku shaqeeya adeega roamingka loo yaqaano iyo tiknoolajiyada xayeysiisyada kala duwan la soo dhexmarsiiya telefoonada casriga ah inay keentay in si fudud loo bartilmaameedsado xogtoodana la helo sidoo kalena la ogaado saldhigyada ay ku sugan yihiin iyo macluumaadka ku gadaaman. isku dayada raadraacan waxay bilowdeen xilligii ka horreeyay weerarkii Mareykanka iyo Israa'iil ay dabayaaqadii bishii February ay ku qaadeen dalka Iran, waxaana ay sii socdeen maalmihii ugu horreysay ee dagaalka iyadoo markasta oo heshiis xabajoojina la gaarana la sheegay inay mar walba sii kordhayeen weerarada dhanka internetka ah. sida warbixinta lagu sheegay iyadoo lasoo xiganaya cilmi baaris la sameeyey waxay muujinaysaa in fariimo loo diray qaar ka mid ah ciidanka iyadoo la iska dhigay fariin shirkadda ay isticmaalayaan ka timid oo kale, markasta oo ay fureenna si toosa loo ogaaday dhaqdhaqaaqooda, halka ay ku sugan yihiin, saldhigyada ay joogaan, agabka saldhigyadaasi yaalla. taasina ay u fududaysay dowladda Iran inay beegsato saldhigyadan iyaga oo aan isku hadlaynin xitaa ama sugin sawirada dhanka satellite-ka. dhinaca kalena sawirro satellite oo lasoo qaaday ayaa muujinaya waxyeelada gaartay dalalka Jordan, Cumaan iyo Qatar, gaar ahaan saldhigyada Mareykanka halkaasuu ku leeyahay. markaad eegto sawirada lasoo qaaday ka hor iyo kadib waxa muuqanaya burburka gaaray saldhigyada Mareykanka dalalkan uu ku leeyahay. saddexdii habeenee lasoo dhaafay Iran ayaa si weyn halkan u duqeysay iyadoo adeegsanaysa diyaarado iyo gantaale plastic ah. macluumaadkan waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagayaa insha Allah. intaanan eegin warbixinta ku saabsan shirqoolkii Israa'iil ay doonaysay inay maamulka Iran ay ku ridaan kula wadaago wararkii ugu dambeeyay. Mareykanka iyo Iran xalay mar kale duqeymo ayay iswadaarsadeen ilaa waa berigii maanta. Mareykanka wuxuu sheegay inay soo gabagabeeyeen mowjad kale oo weeraro ay ka fuliyeen goobo dhowr oo gudaha dalka Iran ah. Iranna way ka jawaabtay oo waxay sheegtay wax khasaare inaanay soo gaarin. waxaa kaloo ay sheegeen inay beegsadeen dalka Kuwait, gaar ahaan saldhig ciidamada Mareykanka halkaasi ay ku leeyihiin. dowladda Kuwait waxay soo saartay inay ka hortageen dhowr gantaal iyo diyaarado daroonisa. kaliya Kuwait kuma eka sheekada, xitaa Bahrain ayaa la sheegay gacanta Iran inay gaartay. sidoo kalena Jordan saldhig ku yaala in la beegsaday ay wararku ay sheegayaan. waxaana la isweydiinayaa miyay miiska wada hadalka ku soo celin doonaan cadaadiska military ee Mareykanka uu saarayo dowladda Iran. inta badan khubaradu waxay isku raaceen taasi inaanay suuragal ahayn marka la eego hanjabaadaha ka imaanaya xarunta ciidamada dowladda Iran ee Qatim al-Anbiya loo yaqaano. afayeenka xarunta Qatim al-Anbiya wuxuu si cad u sheegay haddii ciddi waxyeello laga gaarsiiyay inay iyagana ciddo kala siibi doonaan, haddii lug waxyeello laga gaarsiiyay inay lug yani iyagana ay waxyeello gaarsiin doonaan. yani wuxuu ula jeedaa haddii kaabayaasha tamarta aad aadaan annagana kaabayaasha tamarta ayaan beegsan doonaa. mar kale ayuu warkaasi ku celiyey, wuxuuna yidhi inta hadda ka harsan xarumaha kaabayaasha tamarta ah ee dalalka qaliijka waa inoo bartilmaameed haddii Mareykanka uu sii wado duqeymaha xarumaha shidaalka iyo buundooyinka.
dowladda Jordan 8 diyaaradood oo drones ayay sheegtay saacadii ugu dambeeyay inay soo riday iyo gantaalaba Ciraaq waxaa la sheegay magaalada Erbil oo waqooyiga dalkaasi Ciraaq ah gaar ahaan gobolka Kurdistan inay diyaarad drones ku dhacday inkastoo dowladda taas ay cambaaraysay magaalada lagu magacaabo Khorramabad oo ka tirsan gudaha dalka Iran dhawaaqa qarax xooggan ayaa goordhow laga maqlay iyadoo ay u badan tahay duqeynta inay qayb ay ka tahay arrimahan oo idil waxyaabaha ka soo kordha iyo wararka ugu dambeeyaba insha Allah barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa warbaahinta ayaa waxay daahay ka qaaday faahfaahin cusub oo ku saabsan qorshe qarsoodi ahaa oo fashilmay kaasoo hay-adda sirdoon ee Israa'iil ay diyaarisay horraantii sanadkan si loo rido nidaamka dowladda Iiraan qorshahaasina waxaa loogu magacdaray bisadii kabaha xiratay sida lagu sheegay warbixintan oo kanaalka 13aad ee Israa'iil laga baahiyay iyo warbaahinta Sky News liirado Imaaraadka laga leeyahay waxaa lagu sheegay qorshahan inuu dhigaya in Israa'iil ay fuliso duqeymo military oo lagu beegsanayo xarumo ay leeyihiin ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan gaar ahaan xarumahan oo ku yaala xadka Iiraan iyo Ciraaq ee gobolka Kurdistaanta Iiraan warbixintan marka waxaad ka ogaan doontaa macluumaad dhammaystiran oo ku saabsan sida Iiraan loo qorsheeyay in la dhabar jibiyo iyo sida ay kaga hortageen ujeedada duqeymaha xilligaas la doonayay in looga fuliyo deegaanada xadka Ciraaq iyo sidoo kale Iiraan waxay ahayd in wadada loo sii furo dagaalyahanada Kurdiyiinta ah kuwaas oo ka soo gudbaya xadka dalka Ciraaq kadibna gudaha u gali doona gudaha dalka Iiraan una dhaqaaqaya magaalooyinka Kurdiyiinta ay ku xoogayeen ee waqooyi galbeed ee dalkaasi si ay halkaas ay taageero iyo caawimaad ay kaga helaan Muusaad xilligaasi waxay filaysay marka in kumanaan dhalinyaro Kurdiyiin ah inay ku beeri doonaan dagaalyahanadaasi taasoo dhaqdhaqaaqa u bedeli lahayd kacdoon ballaaran oo laga yaabo inuu gaaray ilaa magaalada caasimadda oo Tehraan ah warbixintu waxay sheegtay qorshayaashu inay rumaysnaayeen in haddii kacdoonkaasi Tehraan uu gaaray inuu kici lahaa dibadbax dadweyne oo ay ka qayb galaan malaayiin qof ugu dambeyntiina sababi lahaa burburka iyo ridista nidaamka dowladda Iiraan bilowgii dagaalka Israa'iil iyo Mareykanka ayaa fuliyay duqeymo aad u culus oo lagu beegsaday ciidamada ammaanka ee Iiraan bartilmaameedyadu waxaa ka mid ahaa mas'uuliyiin ka tirsan nidaamka saldhigyo military nidaamyada gantaalada xarumaha booliiska iyo goobaha ay leeyihiin ciidanka baazid loo yaqaano ee waqooyi galbeed dalkaasi Iiraan duqeymahaasi waxaa kaloo la sheegay in looga gol lahaa in lagu wiiqo awoodda ciidamada Iiraan isla markaana loo fududeeyo dagaalyahanada Kurdiyiinta inay gudaha u sii galaan dalkaasi hase yeeshee faahfaahinta qorshaha ayaa la sheegay inuu warbaahinta u gudbay sirdoonkii dowladda Iiraan ay heleen markii sirdoonka ay heleen kadib qaar ka mid ah warbaahinadii ayaa daabacay si loo wiiqo ama hoos loogu dhigo kartida awoodda ee dowladda Iiraan ee dhanka sirdoonka ah waxaana warbaahintii ay sheegeen in cadaadiskii Turkiga uu saaray dhinacyadii ku lugta lahaa arrintan iyo dagaalyahanada Kurdiyiinta iyaguna inay ka labeeyeen in qorshaha ay fuliyaan sheekadu waxay banaanka timid markii Turkiga macluumaadkan uu helay sirdoonka dowladda Iiraan lala wadaagay arrimahaas ayaa ugu dambeyntii ku qasbay Mareykanka inuu ka tanaasulo hirgelintii qorshaha sida lagu sheegay warbixinta Israa'iil weerarkaasi ay dagaalyahanada Kurdiyiinta ay ku qaadi lahaayeen gudaha dalka Iiraan wuxuu ahaa mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee qorshaha sidoo kale qorshaha waxaa ku jiray in madaxweynihii hore ee dowladda Iiraan Maxamuud Ahmadinejad dib loogu soo celiyo masraxa siyaasadda kadibna loo dhiibo hoggaanka dalka haddii nidaamka hadda jira la rido inkastoo Dinajad uu beeniyay macluumaad dhanka sirdoon aan toddobaadkan idinla wadaagay warbaahintan ay baahinaysay wargeyska New York Times ayaa isniintii sheegay in Israa'iil ay sanado badan isku dayaysay inay Dinajad ay u qorto ama ay shaqaalaysiiso danaha Israa'iil marka la eego qorshahaasi waxaa qayb ka ahaa kulan dhex maray Maxamuud Ahmadinejad iyo madaxii Muusaad ee xilligaasi David Barney inta uu socday shir la sheegay inuu ka dhacay dalka Hungary wargeyska sidoo kale waxa uu sheegay in Israa'iil lacaga qarsoodi ay siisay Ali Akbar Javanbeker oo ahaa afayeenkii Maxamuud Ahmadinejad waxa kaloo la sheegay in saraakiil iyo wakiilo Israa'iiliyiin ay dhowr jeer ay la kulmeen Javanbeker ka hor inta uusan bilaaban howlgalkii loogu magacdaray libaaxa geesiga warbixintu waxaa intaas ku dartay bishii February ee la soo dhaafay duqeyn dhanka cirka in Israa'iil ay fulisay oo lagu qaaday dhismaha Ahmadinejad u deganaa weerarkaasi waxaa lagu bartilmaameedsaday ilaaladiisa iyo gawaaridiisa gaashaaman kadibna weerarkaasi wakiilo la sheegay inay ka tirsanaayeen Muusaad ayaa Dinajad u wareejiyay goob qarsoodi ah oo amni ah sida la sheegay inkastoo warkaasi la beeniyay sabtidii la soo dhaafay Ahmadinejad wuxuu ka qayb galayaba kulan ay mas'uuliyiinta dowladda Iiraan lahaayeen oo arrimaha dhaqaalaha looga hadlayay
dhammaan isku xirka macluumaadyadan oo inta badan sirdoonnada iyo warbaahinta reer galbeedka ay baahinayso kaliya waxa ugu muhiimsan oo aan doonaya inaad ka ogaato waxay tahay sirdoonka dowladda Iiraan markii macluumaadka ay heleen in eedda loo saariyay Erdogan oo la yiri isaga ayaa baahiyay macluumaadka iyo in la yiri warbixintii dhanka sirdoonka warbaahintii ayaa heshay sidaas ayana sheekada banaanka ku timid iyada oo hoos loo dhigayo kartida iyo awoodda sirdoonka dowladda Iiraan aragtidaada nala wadaag laagsan muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsantahay